Assalaamu calaykum. Adduunyadan maalinba maalinta ka dambaysa waxaa lagu soo kordhiyaa tiknoolajiyad cusub. Halka ay ka xiisa dhacaan dadka tiknoolajiyadii hore ama saxaabihii hore ay ku dhaqmi jireen. Muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa gaadiidku cajiib badan ee lasoo saaray dhowaan. Hadday tahay markii kugu horreysay ee soo booqata channelkan, fadlan rukuma muuqaalada channelkan oo taaba calaamadda subscribe-ta si aysan kuu dhaafin muuqaalada kale ee kasoo burqanaya channelka Burqad. Lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Flyboard Aya. Aaladan ayaa ah mid qofka lagu xirayo lugaha matooradiisa inuu ku xambaarayo dhabarka. Aaladan ayaa waxay bedelaysaa inay dadku u isticmaalaan safarka ama goobaha shaqada inay ku aadaan, halka ay raaci jireen gawaarida ama gaadiidka dadweynaha. Aaladan ayaa leh matooro diyaaradeed oo ku shaqeeya shidaal. Aaladan ayaa waxay qaadi kartaa culays dhan 100 kilogram, halka ay dooli karto xawaare dhan 140 kilomitir saacadiiba. Soosaarayaasha aaladan ayaa waxay doonayaan inay sii horumariyaan aaladan, halka xawaareedu kordhin doono laga dhigi doono ilaa 200 kilomitir saacadiiba. Culayska qaadi kartana laga dhigi rabo 200 kilogram ugu badnaan. Bounce. Strike. Kani waa gaari gaar ah oo leh 3 lugood una eg mootada. Wuxuu leeyahay astaamo farsamo oo aad u horsareeya oo nooc kasta ah, kaasoo ogolaanaya wadayaasha inay ku safaraan weliba iyagoon badaleynin ama xitaa lugooda aan dhulka taabanin. Soosaarayaasha gaarigan mootada u eg ayaa waxay soo saarayeen mootooyin kale oo miisaankoodu u dhexeeyo 5 ilaa 13 kilogram. Sidoo kale waa gaadiid wanaagsan wadida maxaa yeelay wuxuu ku shaqeeyaa koronto beddelkii shidaalka. Wuxuu leeyahay batari aad u heer sareeya kaasoo ku ogolaanaya inaad ku safarto 45 kilomitir halkii mar aad buuxisaba. Qiimaha aaladan ayaa waxay ku xiran tahay nooca aad rabto, waxayna u dhaxaysaa $220 ilaa $1,100. Bounce. Deep flight. Taasoo macnaheedu yahay biyaha hoostooda in la maro. Aaladan markaa ku harto dibadda biyaha ayaa waxay u yar eg tahay diyaarad. Waxay qaybta sare ku leedahay qayb kubad u eg oo dhalo ah, taasoo loogu talagalay duuliyayaasha iyo rakaabka inay arkaan biyaha dhulka hoostiisa. Aaladan dhirirkeeda ayaa ah 9.5 mitir, halka ballaceeduna uu yahay 2.7 mitir, waxayna leedahay joog dhan 1.6 mitir. Aaladan waxay qaadi kartaa culays dhan 250 kilogram. Bounce. Porsche 996 Hoverboard. Gaariga waa mid ka mid ah moodallada ugu horreeya ee noocan ah, kuwaas oo leh awoodda gawaarida caadiga ah oo kale, inaad si xor ah ugu wadan karto meel kasta aad joogto iyo waqtiga aad doonaysaba. muuqaalkeena intaas ayuu ku eg yahay. Channelka aad daawanaysid waa Burqad Channel. Soo saaraha barnaamijkuna waa aniga Cabdinaasir Cilmi Cabdi. Inta ku kulmayna muuqaalka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.